kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba inoo daawanaysaanba waxaad ku soo dhawaataan warbixin xiiso leh waan uga hadli doono maxay fanka uga baxday Xaliimo Maxamed Axmed Xaliimo Gobaad muxuuse yahay ninka ay guursatay shakhsiyan iyo waxyaabihii uu qaban jiray maxaase ku kallifay inay fanka ka baxdo ayaan halkan idinkugu soo gudbi doonaa saaxiibayaal waxaan sidoo kale halkan idinkugu soo gudbi doonaa soo dhaweyn heer sare oo maanta magaalada Muqdisho loogu sameeyay fanaanka caanka ah Leecaato iyo dadyo fara badan oo maanta la kulmi waayay sababo isaga u khaasa inkastoo gadaal ka shaaciyay intaasan guda galin muuqaalkan xiisaha badan waxaan marka hore idin xusuusinaynaa inay muhiim inoo tahay inaad subscribe saartaan baraha in YouTube-ka ku leenahay iyo sidoo kale inaad like saartaan sidoo kale aadan ka hilmaamina qaybta hoose ee commentiga inaad faalladiina inoogu reebtaan haddii aan ku hormarno fanaanada Xaliimo Maxamed Axmed Xaliimo Gobaad ayaa shaacisay inay fanka isaga baxday guud ahaanba fankan oo ay ku jirtay muddo aad u dheer Xaliimo Gobaad ayaa qoraal ay ku shaacisay boggeeda Facebook-ga waxa ay ku sheegtay inay si rasmi ah uga baxday fanka iyadoo markaasi taageerayaasheeda ka codsatay inay qeyrka ku taageeraan Gobaad oo ka mid ah fanaaniinta aadka looga jeclaa fankooda ayaa sheegtay inay markaasi go'aan qaadatay kadib markii ay garowsatay ama aragtay in adduunku yahay maalmo kooban ayna xasuusan tahay xadiiskii nabigeena Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee oo ahaa haddii aad galabsataan ha sugina in uu waagu idin baryo haddii aad subaxaysataanna ha sugina in aad markaasi galabsanaysaan marka waxaan go'aansaday ayay tiri Xaliimo Gobaad inaan iska joojiyo fanka taageerayaasheeda sharafta badan waxaan idinka rajaynayaa inaad qeyrka igu taageeri doontaan alla oo raali iga noqdo ayaa muhiim ayay tiri Xaliimo Gobaad oo qoraal soo dhigtay barteeda Facebook-ga sidoo kale saaxiibayaal warbixino la isla dhexmaraya ayaa sidoo kale tibaaxaya in nin dhawaan ay ismehersadeen oo magaciisa lagu sheego Axmed Cabdullaahi Saamow oo gabi ahaanba ku amray inay fanka isaga baxdo ninkan oo magaciisa lagu sheegay Axmed Cabdullaahi Saamow ayaa markaasi waxa uu dhawaan ku mehersaday Xaliimo Gobaad dalka Sweden waxa uu ahaa shakhsi ahaantiisa gudoomiye waaxid ka tirsanaa degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir waxa uu ahaa xilligii Xasan Sheekh mar sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa gudiyadii doorashooyinka codadka tirinayay xilligii uu guul ka gaarayay tartanka doorashada madaxweynaha haatan markaasi filada fadhiya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sidoo kale la sheegay in maalin ka hor dalka Sweden uu ka dhacay meherka Xaliimo Gobaad iyo Axmed Cabdullaahi Saamow inkastoo aan la shaacin xogtaasi haddana taas ayaa qasabtay sida la sheegay in markaasi ay fanka isaga baxdo maadaama sida muuqatay uu markaasi jacayl aad ay u qabtay haddii aan intaas uga baxnana xogta Xaliimo Gobaad oo fanka isaga baxday iyo Cabdullaahi Saamow oo mehersaday Xaliimo Gobaad waxaynu fiiri doonaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaa maanta si aad loogu soo dhaweeyay fanaanka caanka ah Leecaato taageerayaal aad u fara badan ayaa waa barigii hore ee saaka waxa ay buuxiyeen qaybo ka mid ah garoonka Aadan Cadde iyagoo sugayay in markaasi ay ku soo dhaweeyaan garoonka Aadan Cadde fanaanka caanka ah Leecaato oo safar aan hore loo sii shaacin ku yimid magaalada Muqdisho inkastoo markaasi taageerayaashiisa qaar ay ogaayeen qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu uga garaabay taageerayaal aad u fara badan oo la kulmi waayo sabab la xiriira inay maanta ahayd maalin aad u kulul waxa uu yiri reer Muqdisho gob ayaa tihiin nolosha xamar inaan ku dhashay ayaad dareensiiseen inkastoo mar dambe la ii sheegay in markaasi badan inay hoolka sahal igu sugaysay haddana markaasi kuleel iyo ogaansho la'aan ayay ku dhacday waan idinka raali gelinayaa laakiin waxaan idin ballan qaadayaa ayuu yiri inaan meel fagaaraha isugu imaan doono waqtiga sida ugu dhaqsiyaha badan markaasi ayaan idin soo sheegi doonaa waana mahadsantihiin dhammaantiin ayuu yiri Leecaato oo ka mid ah markaasi YouTuberada iyo sidoo kale fanaaniinta aadka loogu jecel yahay markaasi kuwa Soomaalida ayaa maalmaha soo aadan waxaa la filayaa inuu taageerayaashiisa meel fagaaraha kula hadli doono saaxiibayaal xogtii aad kala socoteen baraha in YouTube-ka ku leenahay sida Fagaara Entertainment waa naga intaas waxaan idin xusuusinaynaa inay markaasi muhiim inoo tahay inaad mar kale subscribe saartaan sidoo kalena aad la socotaan xogaha iyo warbixinada sheekooyinka xiiso leh ee aan halkan idinkugu soo gudbino